gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xarig ka jaray xarunta baadiqabadka xoolaha nool oo lagu sameeyay dib u dhis iyo dayactir xoogan. xarig jar kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho iyo ku-xigeenadiisa waxa ay kormeer ku sameeyeen qeybaha ay xaruntani ka kooban tahay oo u qaybsan 3 qaybood looguna talagalay in lagu ganaaxo xoolaha ku xadgudba bilicda caasimadda. gudoomiyaha degmada Kaaraan mudane Abshir Maxamed Maxamuud ayaa warbaahinta u sharaxay daafurka xaruntani. mudane gudoomiye waxa sharaf noo amaantay in degmada Kaaraan xeradan maartay ay sheeg horumarinta badan lagu sameeyay maanta aad nagu xirig jarto waa kaaga mahadcelinayna mudane gudoomiye horumarada degmooyinka iyo gobolka Banaadir ka wadaba sidoo kale inta waa kaaga hambalyeeyna gudoomiye kuna soo dhawow maantay xafladan sharaf kale oo aan maanta ugu talagalnay in xirig jarkii baadiqabadka degmada Kaaraan maanta aad nooga xirig jarto waan kugu soo dhaweynaynaa mudane gudoomiye ku soo dhawow. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladda hoose xamar ay waajibaadkeeda ka gudan doonto xoolaha magaalada lagu soo fasaxo. xaruntaas baadiqabadka waxay xalin doontaa ama ay qaban doontaa haddii aan la idmo xoolaha magaalada la isaga soo daayo ee bacaha cuna ee qashinka iyo wasaqda cuna ee hilibkooda iyo caanahooda ay dhibaato ka soo gaarto dadka in magaalada laga nadiifiyo oo halkan lagu soo xareeyo ayaa loogu talagalay xeradan. isla maantay ayuu soo bixi doonaa haddii alla idmo go'aanka ku saabsan xoolaha magaalada la isaga soo daayo. magaalada waxaa lagu soo dayn jiray lo'da iyo ariga balse hadda waxa ku soo ziyaaday geel iyo dameero. afartaas nooc ayaa waxaa loo dhisay 4 goobood oo aan kala fogeyn oo loogu talagalay dhammaantood in lagu soo xareeyo xoolahaas. dadka iska leh xoolahaas waxaan u soo jeedinaynaa halkan inay xoolahooda ay xafitaan oo magaalada ay ka ceshadaan. cidda ceshan weyda haddii aan la idmo waxaa jira ciidamo iyo gaadiid ay shaqadoodii tahay inay halkan ku soo xareeyaan. magaalada marka xoolaha laga soo xareeyo oo ama dadku ay ceshadaan ama neefkii la cesho waayo halkan lagu soo xareeyo waxa soo baxaysa magaalo nadiif ah iyo xoolo nadiif ah oo aan wasaq iyo qashin iyo bac aan cunayn oo caanahooda iyo hilibkooduba oo caafimaad qabo. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.